الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. waxaa maanta magaalada Burco si weyn looga ciiday munaasabada Ciidul Adha kumanaan iyo kumanaan kamid ah shacabweynaha ku dhaqan gobolka Togdheer ayaa saaka lagu arkayay iyagoo qulqulaya wadooyinka halbowlaha oo ah magaalada Burco kuwaas oo u socday tukashada salaada Ciidul Adha garoonka weyn ee Alamsa Stadium ee magaalada Burco oo kamid ah goobihii ay shacabka gobolka Togdheer ku oogayeen salaada Ciidul Adha iyo waxa halkaas kala qayb galay shacabweynaha wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco waxaana ugu horeyntiiba halka hambaliyada ciidda uga diray shacabweynaha reer Soomaaliland iyo guud ahaanba gobolka Togdheer barasaabka gobolka Togdheer maayirka degmada Burco iyo wasiirka cadaaladda Soomaaliland. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. ciid mubaarak ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay cibaadadeena soo dignay inaga aqbalo cibaadadii aynu soo sameynay ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaga aqbalo ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaga aqbalo baahiyo badan baa jiro kuwa shakhsiyaadka u gaara iyo kuwa la wada qabay ilaahay subxaanahu wa ta'aala baahiyeena haawd ilaahay weydiisanaynaa ilaahay inuu dunuubteena dhaafo waxaynu ilaahay weydiisanaynaa inuu aakhirada inoo wanaajiyo oo adduunyada inoo wanaajiyo heerka roob inaga siiyo oo awlaadda inoo wanaajiyo oo xaasaska inoo wanaajiyo oo dhulka inoo wanaajiyo oo nabad iyo nimco ilaahay inagu nooleeyo adduunyada aakhirana ilaahay jannada ina geeyo waxaan salaan gaar ah u dirayaa ciidamada qaranka sida ee dhaxantaasi dhisaysada amnigeena habeenihii maalin u ah waxaan leeyahay idinka marka hore inay hambalyeeyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala amniga inoo ilaalisan barwaaqo aadan maxmed magaalada Burco.